بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيات ككسو بحي شركا ما أنتوا أي تاريخ دو تاي كود بيش السجالات لبضو كن شن إلى واتا وحاول كحزب عدالة دي ودجير كدعي مناسبات تاريخ أو يصير رسمي كشاعين يسوب الشهادة إنه كل رقم قبل كشبيلة هوس يقبل هذا جبويكا كمن نقشة حزب عدالة دي ودجير أين إسك ديوان جليان kadib wadatashi dheer oo ay yeesheen odayaasha nabadoonada salaadiinta culimadiinka aqoon-yahanka dhalinyarada iyo haweenka bulshadeena isla markaana ay ku qanceen daahfurnaanta iyo himilooyinka siyaasadeed ee xisbiga ee leh ififaalo midayn karta ummadda Soomaaliyeed loogana gudbi karo cadaalad iyo wadajir sidaas darteed waxaan halkan ka cadeynaynaa go'aankeena bulsho ee aan gaarnay إن سبوعا عن أبو من نقناي حزب عدالة يودجرك إسلام مركانا كودي رجلين ودمان بلشة عن كسو جينو إن يكمل نقنا حزب عدالة يودجرك لابو إن بلشة دينا تاجرتو برنامج يهملوي كسياسة ده حزب كنا دقنتو شروع الدلك يتن حزب سدح إن أنك قيب قادنو دورشك أو حزب قالو إسلام مركانا taageerno musharaxiinta uu xisbigu soo sharxo afar in aan gacan ka geysan doono faafinta aragtida iyo mabda'a xisbiga guud ahaan gobolada iyo deegaanada aan ka soo jeedno haddaba maxaan ka filanaa filashooyinkeena ku aadan kadib kusoo ka mid noqoshadeena xisbiga in si siman mataqaana loogu qaybiyo fursadaha siyaasadeed ee xilalka maamulka ee ka jira gudaha xisbiga labo in xisbiga uu ka furto xafiiso wakiilad degmooyinka iyo deegaanada ay ka bulshadeena degto si diiwaangelinta loo balaariyo saddex in xisbiga uu si muuqato uga shaqeeyo horumarinta bulshadeena gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka mashaariicda horumarineed shaqo abuurka iyo dhalinyarada iyo xoojinta kaalinta haweenka afar in mar walba la ilaaliyo xuquuqda iyo danaha bulshada mustaqbalka si loo helo cadaalad iyo saami qaybsi sax ah oo qaran hadaba anagoo qaar ka mid ah shucuubta ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolada Jubbooyinka waxa maanta cadeynaynaa in aan u aqoonsanay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka inuu yahay marjaca siyaasadeed ee aan ku tiirsanahay isla markaana si dhab ah ula shaqeyn doono anagoo ku biirayna safka siyaasadda ee dalka baaq bulsho hadaba waxaan ku baaqaynaa in la mideeyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed loona dhiso mustaqbal ku saleysan wax wada qaybsi midnimo cadaalad iyo wadajir siyaasadeed labo in dhammaan shucuubta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada iyo deegaanada aan ka soo jeedno ay ku soo biiraan xisbiga cadaaladda iyo wadajirka si looga gudbo nidaamka 4.5 oo caqabad ku ah cadaaladda loogana gudbo nidaam ku dhisan cadaalad iyo wadajir sida xisbigu uu noogu baaqay saddex in la tixgeliyo talaabada uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsan hergelinta doorashooyinka deegaanka iyo kuwa golayaasha shacabka ee ku saleysan qof iyo cod taasoo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed si loo soo afjaro nidaamkii hore ee ku dhisnaa dano gaar ah iyo kala fogeynta midnimada shacabka wabillahi tawfiiq